السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب شرفت له كحرن بوجينا صومال يونيفرس ما أنت برامج كنا وحنا كسو خدن دونا قصة عجيبة ومدن إن لجوانا خاتو مالين مال ما كميت هويا عيال فريستي عرور تدا سيوقع بسد دروستي كسو دكتين سكول كام هل كعنو جوير جوريجنا أي أديبتي بوك يا خالن سيوسن ومشغولين ولا ليه سكلا هويا ذي أي حل دم صحصوستي صدق جيدا أما أبحر علي سي جيدا قفل بسيدا ويخان إن أيسن ويل راشينك waxa uuna ku noolaa qol ka baxsan qolalka uu guriga ka kooban yahay sabab la xiriira caafimaadkiisa oo aad u liitay markii ay cuntada u geysay kadib ay weydiisay haddii uu u baahan yahay wax kale iyo in kale kadibna waxa ay u soo laabatay goobtii ay ku sugnaayeen carruurteeda waxay aragtay cunugii yaraa oo guri sawiray hooyadii oo aad u faraxsan ayaa weydiisay yaa leh gurigan cunugii yaraa ayaa ugu jawaabay waa gurigayga waxaan dhisan doonaa marka aan weynaado oo aan xaas iyo carruur yeesho mar kale ay hooyadii weydiisay goobta uu ka seexan doono gurigaas aadka u weyn canugii ayaa bilaabay in uu tiriyo qolalkii qolkan waa qolkayga kanna waa midka martida kan kalena waa jikada hooyadii oo aad u yaaban ayaa weydiisay qofka iska leh qol ka baxsanaa qolalka guriga oo keligii meel ku yaalay canugii yaraa oo aan jawaabta soo dahin ayaa ku yidhi waa qolkaaga adiga ayaa ku noolaan doona sida uu maanta awoogay ugu nool yahay qol ka baxsan gurigeena hadalkii uu yidhi cunuga yar ayaa waxa uu ku beeray hooyadii murugo fara badan isagoona ku noqday mid uur ku taala ah hooyadii waxa ay bilowday inay isweydiiso sida uu noqon doono xaalkeeda iyo in ay nolosheeda inta ka dhiman ay ku dhammaysan doonto meel ka fog carruurteeda iyo ilmaha ay dhali doonaan durbo hooyadii ayaa u yeertay shaqaalo si ay u diyaariyaan qolka martida oo ahaa qolka ugu quruxda badan qolalka guriga si uu u noqdo qolka cusub ee awoowaha saygii qabay xaaskii dhashay carruurta ayaa gaballicii ku soo laabtay gurigiisa isagoona weydiiyey marwadiisa waxa sababay isbeddelkan weyn ee guriga ku dhacay inta uu ka maqnaa marwadii oo oynaysa ayaa u sheegtay sheekadii dhex martay iyada iyo canugooda kadibna go'aansatay in ay wax ka beddesho xaalka ninkii ayaa aad ugu farxay arrinta ay samaysay xaaskiisa sidoo kale aabbihii oo dib ula midoobay familkiisa ayaa wejigiisa laga dheehanayay farxad aan la soo koobi karin dhanka kale canugii yaraa ayaa dib u haween weyn ku sameeyey gurigiisa mustaqbalka waxa uuna hal meel isugu keenay familkiisa oo dhan carruurta marka ay yar yihiin waxa ay tusaale ka dhigtaan waalidiintooda soomaalidana waxa ay horey ugu mahmahday geelka weyn meesha uu maro ayuu kan yarina maraa u noqo carruurtaada tusaale wanaagsan oo ay wax walba kaga daydaan fadlan walaal booqashadani haddii ay tahay midii ugu horraysa ee janalkeena Soomaali Universe fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto haddii uu muuqaalkan ku cajabiyo fadlan ha ilaabin inaad like saarto qaybta aaraada ee comments-kana aad inoogu soo gudbiso fikirkaaga mahadsanidin